dhawaaqda kor u kac ku yimid qiimaha shidaalka iyo korontada laga soo bilaabo Sabtidii Janaayo 7deedii. qiimaha naftada iyo batroolka waxa uu sare u kici doonaa ilaa iyo 100 faran. dhanka korontada kor u kaca waxaa lagu dabaqi doonaa qaybo kale, mana saameyn doonto isticmaalayaasha isticmaala wax ka yar 150 kilowatt saacadii. labadii bilood mar tan ayaa ah dadaal lagu badbaadinayo qoysaska danyarta ah. khudbadiisa qaranka ee December 13keedii madaxweyne Macky Sall waxa uu ku dhawaaqay xoojinta dadaalka ilaalinta bulshada ee 2023 iyadoo la abaabulay 450 bilyan oo faran si loogu kabo cuntada iyo wax soo saarka tamarta. dawladdu waxay ballan qaaday tallaabooyin ay kula socon doonto gaadiidleyda. kororka sicirkan ayaa sabab u ah kor u kaca ku yimid qiimaha hydrocarbonta caalamiga ah ee ku xidhan soo nooleynta dhaqaale iyo dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. shirkadda Google ayaa maxkamadda sare ee Hindiya u gudbisay dacwad sharci ah si ay u hor istaagto go'aanka ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha ee dalka, taasi oo ku qasbi doonta shirkadda Mareykanka inay wax ka bedesho sida ay u shaqaynayso aaladda Android-ka. diiwaanada maxkamadda ayaa lagu muujiyay Sabtidii. guddiga tartanka Hindiya ee CCI ayaa bishii Oktoobar ku ganaaxay $161 milyan si ay uga faa'iideystaan jagada ugu weyn ee suuqa Android-ka, taasi oo awood u leh 97% telefoonada casriga ah ee Hindiya, waana gobolka kobaca muhiim u ah. caqabadaha ayaa timid kadib markii shirkadda Google ay dib u dhac ku yimid Arbacadii markii maxkamadda racfaanku ay diiday codsigeedii ahaa in la joojiyo xukunka kalsoonida. shirkaddu waxay ku dooday in fulinta awaamirta CCI ay dhici doonto qaabkeeda ganacsi ee muddada dheer jiray iyo danaha maciishada. CCI waxay go'aamisay bishii Oktoobar in shatiga shirkadda Google ee Play Store-ka aan lagu xidhin shuruudihii hore loogu rakibay adeegyada raadinta Google sida browserka Google Chrome, YouTube amaba application kasta oo Google ah. xaalufinta kaymaha Amazon ayaa bishii December gaadhay 150% marka loo eego sanadkii hore, sida ay muujinayaan warbixino ay dawladdu soo saartay. sawirro lagu qaaday dayax gacmeed dusha kala socda xaalufinta ayaa soo saaray in 218.4 kilomitir square oo kaymaha la xaalufiyay dhulka Amazonka ee ku yaala waddanka Brazil bishii hore ee December. Bolsonaro oo uu bedelay madaxweynaha haatan ee Brazil ayaa kiciyay qeyladhaan caalami ah muddaxileedkiisii kadib markii ay si aad ah kor ugu kacay xaalufinta kaymaha Amazonka ee waddanka Brazil, kaasi oo muhiim u ah dadaalka loogu jiro dhimista isbeddelka cimilada adduunka. xaalufinta dhirka ayaa sanadkii 2022 gaadhay heerka ugu sarreysa xilligii lagu jiray bilaha xasaasiga ee xilliga cimiladu qallalan tahay ee bilaha August, September iyo October, taasi oo inta badan gubidda iyo goynta dhirta Amazon la sameeyo. xeeldheerayaasha kaymahani waxay sheegeen in xaalufinta ay keeneen beerasho iyo boob dhuleed oo loo adeegsanayo in lagu dhaqdo lo'da oo xilligii madaxweynaha ka ahaa 2003 ilaa 2010 ayaa lagu xasuustaa inuu si weyn hoos ugu dhigay xaalufinta kaymaha Amazonka ee dalka Brazil, isagoo haatan ballan qaaday in uu ilaalinta deegaanka ka dhigi doono mid ka mid ah tiirasha siyaasadeed ee ugu waaweyn. Kevin McCarthy ayaa loo doortay afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka, isagoo ka guuleystay kooxo garabka fog ah oo maalmihii la soo dhaafay caqabad ku noqday doonistiisa inuu hogaamiyo golaha. waxa ay ku qaadatay 15 wareeg
inuu ku guulaysto kursiga isaga oo helay 216 cod oo ka mid ahaa 428 cod oo ka mid ahaa codadkii jimcihii la qaaday, halka uu tartamihii ka socday xisbiga dimuqraadigu ee helay 212 cod. Kevin oo kursiga ku fadhiistay ayaa ugu dambeyntii waxaa dhaarin doona golaha wakiilada oo yeelan doona marka uu kulankoodu bilowda sanadkan. Waa markii ugu horeysay afayeenka golaha wakiilada la dooran waayo wareegga koowaad. Ololaha Kevin ayaa hawada ku jiray ka hor inta uusan goluhu kulmin maalintii Jimcaha, isagoo gorgortan kula jiray kooxaha midigta fog ee xisbiga dimuqraadiga. Xisbiga dimuqraadiga ayaa si dirq ah ugu guuleystay aqlabiyadda golaha kadib doorashada ay sida weyn uga niyad jabeen ee xilliga dhexe ee doorashada Mareykanka. Doorashada ayaa waxaa golaha odayaasha weli gacanta ku haya xisbiga dimuqraadiga. Kevin ayaa bedeli doona hogaamiyihii muddada dheer ee aqalka oo bishii hore ku dhawaaqday inay xilka ka degayso. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay halka 10 kalena la la'yahay kadib markii doon dadku buux dhaafiyeen oo wada qaxooti iyo muhaajiriin inay ka tallaabaan badweynta Mediterranean-ka, kuwaas oo ka yimid Tunisia una socday waddanka Talyaanigu ay degtay, halka 20 qof oo kalena ay badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee Tunisia. Doontu waxay ku degtay meel ka baxsan xeebta Luuta sida ay sheegeen saraakiisha garsoorka ee Tunisia maalintii Sabtida. In ka badan 25 qof ayaa ku dhimatay amaba ku maqan badweynta Mediterranean-ka, kuwaas oo isku dayay inay ka hayaamaan wadamada waqooyiga Afrika si ay u gaadhaan qaaradda Yurub tan iyo 2014 sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka. Bilihii u dambeeyay 100 qof ayaa ku dhimatay xeebaha Tunisia, iyadoo oo sare u kac laga dareemayo dadka isku dayaya in ay ka haajiraan dalalka Tunisia iyo Liibiya ee galaya Talyaaniga. Dalka Tunisia oo dhaqaale xumo baan ka jirto waxaa 2022 ka tagay tahriibayaal ka badan 18,000 oo qof, kuwaas oo safar badda ah ku galay dalalka Yurub. Isagoo qulqulka muhaajiriintu kor u sii kacaya ayay haddana dawladda cusub ee Talyaanigu meel marisay sharci ganaaxaya hay'adaha samafalka ee soo badbaadiyay muhaajiriinta magangelyadoonka ee badda ka soo galaya waddanka Talyaaniga, iyadoo sheegtay inay la wareegayso maraakiibta soo badbaadisa muhaajiriinta. ugu yaraan 102,000 oo muhaajiriin magangelyadoon ayaa dhinaca badda ka galay Talyaaniga sanadkii 2022 sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu. intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii daafaha dunida ee SRTV. Tan iyo kulan dambana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.